بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا دمان ما تسكله oo goobtan soo waafajiyay oo ah goob sagootin iyo qiimeyn waalidka uu leeyahay lagu qiimeynayo dhamaan waxaan rabaa si salaan iyo qiimeyn leh wasiir dawlaha iyo xildhibaanada iyo agaasimaha iyo bahda waxbarasho isku duuban dhamaan assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh farxad waxay noo tahay galabta aan qiyaasi karin maadaama gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed maamooyinka guushan weyn dhaliyay guul iskama imaado waxa ku imaada Allah subhanahu wa ta'ala in la tala saarto waxa ku imaada dadaal badan iyo dheeri badan dadaalkaasi ma hadda Allah subhanahu wa ta'ala ka suko waxa iskale maamooyinka Soomaaliyeed oo soo kacay subaxiina caruurtooda u kala ahaan ay maxaa yiraahdaa quraacda u diyaariyaan maxaa yiraahdaa wax walba ay noloshooda ku horumarin karaan si ay bari dadkooda iyo dalkooda ay anfacaan iyagana anfacaan maanta marka waxaan fiirnaa waxay tahay anfacay iyaga anfaceen caruurtooda oo dadaashay waxaan leeyahay insha Allah waxa idin rajayn doonaa cimrooyin badan iyo xaj badan inuu Ilaahay idin gaarsiiyo tan kale shirkadahan waxay u tahay platform ay ku tartami karaan maxaa yeelay waxbarashadu waa ajado qaran dhamaanteen waxaan rabaa inaan istaagno dal inuu horumaray markii la rabo in la fiiriyo waxa la horumarsiyaa aqoon ay waxa la geliyaa wax walba oo dawladda ama aadanaha uu awoodo si loo horumariyo dalkaas maxaa yeelay darbiyada iska dhismayaan halkaan iska daarmayaan badda wax ku jira lama soo saari karo diyaaradana ma socon karaan haddii aan loo helin dad soo saaro iyo waalidiin u dhawr adeega marka shirkadahan iyagana waxaan leenahay hadda waa markii ugu horeysay inta shirkadaha Soomaaliyeed ay jiraan adeegyada cumrada iyo xajka qabto marka haddii maanta ay garteen oo gudoomiyihii shirkadaha iyo xajka iyo xamlooyinka ka shaqeynaya Cali Faarax ilaanji ay fadhiyaan waxaan rajeynayaa insha Allah wixii kale inay ahaan doonaan ku deesho mudan oo wanaagsan gobolka Banaadir waxa ka go'an mar walba inuu u istaagan yahay sidoo u diyaarin lahaa dhalinta Soomaaliyeed dhanka waxbarashadana oo horumarin lahaa maxaa yeelay caasimadda Soomaaliya waxay u baahan tahay dad gabdhahan camal ah oo waalidiintooda quruxsaday maanta u ambixinayo cimro iyo xaj geenayo dalkoodna ka shaqeyn doono waqtiga dhow haddii dadaalkaas iyaga ay lablaabaan ay sii wadaan annaga waxaan aga go'an inaan u diyaarino wax walba oo tasjiilaadka waxbarashada ah haddii macallimiin noqon lahayd iyo haddii madaarista loo dhisi lahaa intaba diyaar ayaan idin lanahay sida aad la socotiin magaalada Muqdisho waxa ka socda iskuul gabdha ay leeyihiin oo kali ah iskuuladaas oo waqti dhow xariga laga jari doono oo gabdhaha kale in wax ku bartaan loogu talagalay marka farxaday taas noo tahay iskuulada kale ee gobolka Banaadir dhamaantoodna waxaan u diyaarinay in maxaa la yiraahdaa ii sheeg ardayda Soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan inay wax ku bartaan hadda sanduuqyadka furmana waxaan rabnaa maxaa la yiraahdaa ardayda hadda noo diiwaan gashan wax ka badan in la keeno waalidiinta ku boorina si dawladda Soomaaliya guud ahaan ajandaheeda markii amniga iyo siyaasadda laga baxo ajandaha labaad ee u tahay waxbarashada in la horumariyo muhiim ay noo tahay dawladda Soomaaliya gabi ahaan hore u fududeysay wax walba oo waxbarashadaas ku saabsan haddii manhaj noqon lahayd hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa shahaadooyinkii intaba way fududeysay waxa uu shaqeyn naga dhaxaysa guud ahaan bahda waxbarashada haddii aan lahayd midowga dugsiyada gobolka Banaadir ama kuwa private ka ah iyo kuwa dhammaan waxbarashada la halmaalo waxaan u taaganahay gobol miiskan waxaan u fadhinaa wax kalma inaan ka shaqeyno waxbarasho iyo horumar arrimo bulsho inta kadib sogootintan iyo maxaa la yiraahdaa isha amba baxan waalidiinta la ambixinayo waxaan leenahay marka meesha tagtiin dalka u soo duceeya ardayda meesha idin gees u soo duceeya guud ahaan dalka inuu noqdo dal barwaaqo oo horumar iyo maxaa la yiraahdaa ku tahmo ama ku tilaabsado maxaa yeelay dalkan maanta waa dalka dunida ugu hodansan haddaan ognahay haddaan ogeyn waxyaalo badan adduunyada laga helaa marka sidaa darteed jiilka wax bedel lahaa idinka waaye idinka caruurtiin oo socotiin loo soo duceeyo shirkadahaas iyo maxaa la yiraahdaa cid walba oo gacan ka geysatana waxay noo tahay xusuus gaar ah hore u geysan jireen haddii salaam bangi ay noqon lahayd bangiyada Soomaaliya guud ahaan ee dalka ka jiro waxay qabteenna waxaan annaga aan maxaa la dafiri karna ma ahan dawladnimada Soomaaliya way garab istaageen aan garab istaagna ardaydaas insha Allah